jirkaaga ma ku dhisan yahay markiina waxay ka caawinaysaa bilowga hore laakiin inta kale mataqaana waxay ku xiran tahay aqligaaga meeshuu leeyahay iyo shaqsigaaga khalad ay fahmeen hadduu jirkaaga dhisan yahay macnaheedu maahan gabdhaha dhan saf inay kuu soo galayaan waxaa kaliya ka caawinaysaa barashada hore asxaabta soo dhawaada saaxiibkii Maryoli Masal waaye minikini waaye aad iyo aad u mahadsantihiin taageerada channelkan taageerteen meel walba adduunka ka joogtaan adiga walaashay walaalkay hadda channelka ku cusub tahay aniga magacaygu waa Cabdinaasir waxaan soo biyaa video ku saabsan raashinka fitness iyo bodybuilding videogan hore wuu ka duwan yahay videogan su'aalo la soo weydiiyay ayaa uga jawaabayaa maalin dhaweed ayaa maxay sheegay Instagram-kayga waxaan ku soo qorayaa su'aal qabo dad badan su'aalo ay soo weydiiyaan su'aalaha qaar ayaa hadda aan ka jawaabayaa by the way haddii aan Instagram-ka saaxiib ku ahayn Instagram-kayga waa Maryoli Masal igu soo darso su'aasha arbin waa soo weydiin kartaa waana kaaga soo jawaabaa su'aasha ugu horeysa la soo weydiiyay waxay tahay programkee fiican bro split iyo push pull and legs runtii su'aal aad u fiican waa aadan ugu faraxsanahay su'aasha la soo weydiiyo bro split macnaheedu waxay tahay maalintii hal muruqa la training gareena tusaale ahaan maalinta isniinta kale xabada la training gareena talaadada kale dhabarka la training gareena arbacada kale lugaha la training gareena khamiista kale garbaha la training gareena ujeedada waxay tahay maalintii mataqaana hal muruq la training gareeyo push pull and legs waxay tahay waxaa la isla training gareena garbaha iyo xabadka kale tusaale ahaan waxaa lagu xijinaa lugaha haddana waxaa lagu xijinaa dhabarka oo puule haddana waa intaas lagu soo celinaa ujeedadana waxay tahay in weegi laba maalin muruq walba jirka kamid la training gareeyo ani shakhsiyan waxaan isticmaalaa push pull and legs saddexdii sano la soo dhaafin waa isticmaalay horumarka aan suubiyayna weligay ma aan suubin sababta aan ku sheegaa maxay sheeg mataqaana push pull and legs u fiican tahay tusaale ahaan maanta oo kale hadda garbaha training gareysid ma aragtay waxaa imaanaya protein synthesis kaas maalmo meesha jooga marka maxay sheeg mataqaana si looga faa'iideysto maalmahaas meesha uu joogo waxa fiican muruqiiba laba jeer in la training gareeyo protein synthesis ka mataqaana ugu badnaan 3-4 maalmo meesha jooga ina ka faa'iideystid waa marka janiskaas midda kale macnaheedu ma ahan bro split ma shaqeynaayo bro split wuu shaqeynaa bilowga hore markan uu shaqeynaa laakiin marka muddo ku jirtid ma aragtay trainingka ama muddo gymka ku jirtid horumarka wuu soo gaabinaa saas darteed markino ani shakhsiyan ama dadka inta badan waxay qabaan bro split-ka iyo push pull and legs-ka inuu fiican yahay push pull and legs sababtoo ah waxa markaas janis u helaysaa inaad training gareysid laba mar muruq walba weegi su'aasha kale oo soo weydiiyay waxay tahay waxaan ahay qof buuran waxaan rabaan cunaa wax sportina ma suubiyo buurnida ceeb miya mise waa fool xumo walaalkay maxay sheeg buurnida ceeb ma ahan fool xumona ma ahan qof ilaahay abuurtay oo fool xun ma jiraan fikirkaas aan aaminsanahay laakiin buurnida caafimaad darro waay walaalkay hadda aad u buuratid ma aragtay waxa kugu dhacay sokor waxa kugu dhacay dhiikar waxa kugu dhacay cholesterol iyo wixii la mid ah waxa kale walaalkay dib kugu noqonaya maxay sheeg socodka hadhow jilbaha ku xanuunayo lugaha ka barareysa sababtoo qaarkaaga hore markiina wuxuu ka weynaanaa qaarkaaga dambe lugaha markaas ma qaadi karaan qaarka hore maadaama qaarka hore aad ugu weynaatay walaalkay waxa kale dib kugu noqonayo habeenkii inaad seexatid because dadka buuran habeenkii neefta way ku adkaanaysaa waxaad u baahan tahay mashiinka markaas lagu neefsanayo waxaas u baahnanaysaa hadii buurnidaad aad u badan u weynaataan ka wadaa midda kale khatarta kale tan waxay tahay hadduu ilaahay ilmo ku siiyo mataqaana xanuunada markaas buurnida ay ku keento ilmahaagana way ku dhacayaan sida cudurrada maxay sheeg mataqaana dhiikarka sokorta iyo cholesterolka cudurrada la iska dhaxlo waaye maxay sheeg mataqaana haddii adiga caajisnimadaada darteed markiino cudurradaas ay kugu dhaceen ilmahaagana way ku dhacayaan marka maxay ilmaha dhali doonta xitaa ilma maxay sheeg xanuunsan ma rabtaa mise ilma caafimaad leh inaad dhashaa rabtaa ko takaleeto waxay tahay markiino nolosha new joyce waaye walaalkay nolol caafimaad lama rabtaa mise nolol meel kasta ay ku xanuunayso 100 kaniini maalinta cunaysa ma rabtaa marka walaalkay adiga isfiiri muraayada isku fiiri sida markaas mataqaana adiga kula qoman suubi intaas aan kugu la talin ani waxa suubi kuma dhihi karo because waa naftaada su'aasha kale oo soo weydiiyay waxay tahay haddii aan jirkeyga dhisto gabdhaha ma jeclaanayaan jir dhisitaanka ee jaceelka laba waaye laakiin markuu jirkaaga dhisan yahay waxyaabo badan ay ku fududeynay sida isbarashada hore tusaale ahaan markino haddii aroos joogtid ama xaflad joogtid jirkaaga dhisan yahay ma aragtay gabdhaha way ku soo fiirinayaan haddii adiga la hadashidna way kula hadlayaan marka waxa laga yaabaa gabdhaha inay isku baratiin arooskaas ama xafladaas midda kale markuu jirkaaga dhisan yahay kalsooni saa'ida ku soo galayso labisku waa ku qurux badnaanaysaa way ku fududaanaysaa markaas gabdhaha inaad la hadashid maadaama aad isku kalsoon tahay markino
midada kaleeta maxaad ii sheeg mataqaanaa haddii jirkaaga dhisan yahay sawiro qurux badan social mediada ay kugu jiraan sida Facebook ama Instagram gabdho toos kula soo xiriiraya way jiraan ama adiga hadda la xiriirtidna mataqaanaa way kuusoo jawaabayaan saasna ku baran kartaa gabdho jirkaaga markuu dhisan yahay markiina waxay kaa caawinaysaa bilowga hore laakiin inta kale mataqaanaa waxay ku xiran tahay aqligaaga meeshuu leegyahay iyo shaqsigaaga khalad ay fahmeen hadduu jirkaaga dhisan yahay macnaheedu maaha gabdhaha dhan saf inay kuusoo galayaan waxaa kaliya kaa caawinaysaa barashada hore su-aasha kaloo la isoo weydiiyey waxay tahay bil walba jimka waan bixiyaa mana aado motivation aan u baahanahay halkee aan ka helaa motivation si aan jimka maalin walba aan u aado walaalkay way fududahay markino ani hal talaan ku siinaa beri subax markaa hurdada kasoo kacda markino muraayada isku fiiri adi isweydii markaas ma u baahantahay inaad jim aadid ama uma baahnid haddii maxaad ii sheeg mataqaanaa jawaabta noqoto inaad u baahantahay jimkina aadid aad haddii kalena mataqaanaa maasha allah garabkaaga allaha galo marka maxaad ii sheegtan adaa go-aansan karo ani wax talo aan ku siin karo ma lahan su-aasha kaloo la isoo weydiiyey waxay tahay brotiin noocay u fiican dadka waxay aaminsan yihiin haddii brotiin soo gataan iyo cabaan hore inay ka dhismaayaan su-aashaan maalintii 10 jeer la isoo weydiiyaa walaalkay saas ma u fududa horta marka hore hadda brotiin markaa ka fikiraysid waxaa fiican inaad ka fikirtid meeqa garaam maalintii u baahan tahay tusaale ahaan walaalkay haddaa tahay 80 kiilo waxaad u baahan tahay 160 garaam si muruqaagu u weynaado macnaheedu maaha 160 garaam oo brotiin aad u baahan tahay way brotiinka inaad kasoo qaadatid ها بروتينada way kala quality fiican yihiin kuwa waxa jira India lagu suubiyo ama China quality-gooda uu xun yahay kuwa waxa jira Mareykanka ama Europe lagu suubiyo quality-gooda uu fiican yahay way kala lacag badan yihiin marnaba laakiin macnaheedu ma ahan inta protein aad u baahan tahay inaad ka soo qaadatid way proteinka inta u badan proteinkaaga waxa loo baahan yahay raashinka inaad ka heshid marka maxaad ii sheeg mataqaanaa waxaa cuntaa raashin aad proteinka helaysid haddii xitaa dhaqaale ahaan suurtagal ku ahayn inaad chicken ama hilib ama fish aad soo iibsatid meelaha u badan proteinka laga helo waxaan kugula talinaa galbihii marka lasoo raqiisiyo suuqa tag marka walaalkay caajislow ha noqonin galbihii suuqa tag adiga soo adeego raashinkaaga suubso inta proteinkaaga ka dhimanna maalintii way proteinka ka dhamaystir hadduu ku yaalo su-aasha kaloo laisoo weydiiyey waxay tahay fat burner noocay u fiican fat burner waa kaniiniyaal dadka loogu sheekeeyo inay ku caatoobayaan oo lagu gado dukaamanka waxyaabaha fitnesska lagu iibiyo walaalkay horta fikir haddii maxaad ii sheekaniin inta lasoo qaato la cabayo lagu caatoobayo qof buuran adduunka ma joogi lahayn qof kasta mataqaanaa maxay murquul ahaan lahaa wuxuu ahaan lahaa fidur ahaan lahaa marka cajislow ha noqonin caatinimada ama daarat miisaan iska ridid ma aragtay waxay ku xiran tahay raashinka haddii aad rabtid mataqaanaa miisaanka inaad iska ridid waa inaad tahay caloric deficit macnaheedu wuxuu yahay energy kusoo gala iyo kan kaa baxo waa inuu badan yahay kan kaa baxo kan kusoo gala nuu yaryahay markaas kadib aad caatoobaysaa marka ama fat burner isticmaal ama daroogo kaloo ka weyn isticmaal waxaas marnaba kuma shaqeynayaan haddii raashinkaaga uu xun yahay haddii xitaa mataqaanaa soo gadatid mataqaanaa ma soo gadatay uu ku yaalo fat burner baakada akhri baakada faryarihiisa gees uga dhigan waxaa ku dhigan mataqaanaa kaniinigan waxba kuuma taraayo hadduu raashinkaaga uu xun yahay marka maxaad ii sheeg mataqaanaa mar walba raashinkay ku xiran tahay kaniiniga kuma xirna kaniiniyaashaasna wax shaqeynaya ma ahan wax dadka lacag looga qaato waaye marka cajislow ha noqonin maxaad ii sheeg mataqaanaa caloric deficit how maxaad ii sheeg mataqaanaa hadda gym aad gymka aad haddii aad gym aadina mataqaanaa dhaqdhaqaaqaaga badi maalintii banaanka kusoo lugay intaasaan kugula talinaa asxaabta daawashada videogana daawateen aad iyo aad u mahadsantihiin haddii aad rabtiin video saan oo kale inaan soo suubiyo commentiga hoos igu soo qor haddaa su-aal qabto instagramka igala soo xiriir ama commentiga hoos igu soo qor asxaabta iloowina videogana like dhahdiin commenti ka bixisiin asxaabtiina u share garaysiin aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada videogana daawateen mahadsanadiin waxaan noo balana videoga ku xiga